maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysane maxamed cabdiwahaab nuur abuuja 27 jir ah ina jamiilo cali maxamuud ku dhashay xamar kaas oo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo dacweeyay inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab iyo inuu dilay marxuumad baxsanay cabdulla boolay dilkaas oo ka dhacay degmada boondheere gobolka banaadir taariikh 6 bishii 3 2019 maxkamaddu waxay u jeedisay si waafaqsan habraaca dacwadaha eedda loo haystay eedeysane maxamed cabdiwahaab nuur wuxuuna ku jawaabay ma gelin dood dheer kadib maxkamaddu markii ay aragtay eeddii uu soo gudbiyey xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida markii ay maxkamaddu dhageysatay markhaatiyaashii la hor keenay maxkamadda oo ka hor caddayn waayey in eedeysane maxamed cabdiwahaab nuur uu galay eedda loo jeediyey markii ay dhageysatay maxkamaddu gabagabada qareennada difaacayay eedeysane maxamed cabdiwahaab nuur oo ahayd in xurriyaddiisa loo celiyo markii ay dhuuxday maxkamaddu nuxurka doodda u dhaxaysay dhinacyada dacwada waxaa soo ifbaxay in maxamed cabdiwahaab nuur uusan gelin eedda lagu soo oogay waxayna maxkamaddu amraysaa in xabsiga degdeg looga sii daayo haddii aan loo haysan dembi kale ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u fulan raacfaan sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa hay-adaha ammaanka in ay dabagal iyo baaris kala sameeyaan soona qabtaan dembifalihii rasmiga ahaa ee dilay marxuumad baxsanay cabdulla boolay isla markaana ay hor keenaan cadaaladda si loo qaado tilaab ku habboon oo sharciga waafaqsan waa mahadsantihiin bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh dhammaan wariyaashii ururka saxaafadda SJS waxaan ku soo koobay hadalkayga xukunkii maanta iriday maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya kaas oo u dhacay si cadaalad waxaan leeyahay aad u mahadsantihiin markasta cadaaladda sareyso mahadsantihiin abuuja uu helo cadaalad horta waa u mahadnaqayaa waa looma kala harin dhammaan ururada saxaafadda wax u kala harin malaha marka koow waa mahadcelin gaara oo iyaga ku salaysan la'aantoodana taasi inaan la gaari lahayn teeda kale waxaan u mahadnaqaa maxkamadda ciidamada qalabka sida gudoomiyaasheeda xeer ilaalinteeda garsoorayaasheeda guud ahaan waa u mahadnaqaa waayo waxaan ka aragnay oo isha aan saarnay ama goobjoogga aan ka ahayn waxay ahayd in arinta ay hoos u daadegaan si cadaalad ahna ay go'aan uga gaaraan kadib markii ay arkeen dulanka iyo xuquuqdiga sharci daro ee lagu haystay maxamed cabdiwahaab nuur abuuja oo ah wariye ka tirsan wariyaasha Soomaaliyeed waa ayaan daro alxamdulillaah rabbil caalamiin dadaal badan kadib waxaan gaarnay cadaalad maxkamadda ciidamada qalabka sidana ad aan uga mahadnaqaa waana cadaalad maxkamadda waana mahadsantihiin wariyaha garabkayga taagan maxamed cabdiwahaab nuur abuuja waxaa lagu soo eedeeyey eedo culculus laakiin ugu dambayntii waxaa maxkamadda horteeda ka caddaaday in waxa loo heestay ay ahaayeen xurriyatul qowl aragtidiisu cabbiray oo si dastuurka iyo shuruucda dalka waafaqsan oo u cabbiray inay ahaayeen caddaati maxkamadda ciidamada aad ugu mahadcelinaynaa waxaa la galay dacwad furan oo u furan dhegaysiga dadweynaha kadib dhegaysi dheer waxaa caddaaday in maxamed cabdiwahaab nuur abuuja uusan gelin eedihii culculusay ee lagu soo eedeeyey waxaa loo haystana ay ahaayeen aragtidiisa oo cabbiray oo uu ku qoray facebookga oo uu ka dayey idaacadda abuuja maanta waa xur 5 bilood ayuu xirnaa waxaan ku faraxsannahay in maanta uu bannaanka joogo oo xur uu yahay shaqadiisii saxafinimo uu dib u wadanayo waxaan rabaa inaan u mahadceliyo qareennadii saaxiibadan ahaa ee muddada dheer ee 5 bilood habeen iyo maalin nala shaqaynay ee daba taagnaa ee si kala duwan noo taageeray si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa qareen daahir maxamed cali daahir carab shaqadii quruxda badneed ee uu nala qabtay isaga iyo kaaliyaashiisa iyo dhammaan qareennada kale ee halkan ka qayb galay ee ay ka mid ahaayeen professorada iyo isxaaq maanta cadaaladii ayaa shaqaysay waxaan rajaynaynaa in saxaafadda Soomaaliyeed
sidaa loo fahmo waxaan ogeyn abuuja wuxuu yahay waxaan ogeyn meesha uu ka yimid wuxuu ka shaqaynayay markaan ku celcelinayna dad badan baa la lahaa shabaab baad garab siinaysaan shabaab baad leedii ruuxana ninkaan duntiisaan naqaanaa maanta waxaan aqoonsannay wixii maxkamadda ay go'aankeeda ay soo saartay in ay la mid yihiin wixii shalay aan ka hadlaynay waxaan rajaynayaa in cadaaladdu ay shaqayn doonto maxkamadda militarigana si gaaraan ugu mahad celinaynaa shuuta iyo tiimkiisa sida wanaagsan ee cadaaladda ay maaragtay u mariyeen